لاعب ليونيل ميسي iyo sidoo kale xulka Argentina oo taageerayaal badan dhumiyeen Lionel Messi oo fadeexad hadda ay haysato asaga ahaantiisa kadib markii ficilo uu isku dayay in faarta loo soo fiiriyo oo ku qalqaalinayay garsooraha Kokoreya oo la hadlay oo afka tiranaya ayuu wuxuu yiri ninkan afka ayuu qabsaday ee faarta loo soo fiiri garsooraha sidoo kale wuxuu isku dayay xataa laacib asaga ka tirsan oo xulkiisa ah in uu yiraahdo laacibkan hal loo fiiriyo faarta asagoo iska dhacay oo daalanaa laacibinta daaleen ee dhulka iska fadhiisanaya markasta oo yacni ciyaarta la istaajiyo ciyaarta waxaa dhacday marka foul inuu geysto laacibka Enzo oo uu geysto difaaca Spain ee Kubarsi foulkaas oo ahaa jaalihii labaad oo la siiyey Enzo saasna uu ku baxay marka wuxuu rabay faarta inay marka la fiiriyaan si jaalahaas labaad loogu celiyo oo la yiraahdo waa raqiis waay camal faartan oo ognahay waxyaabo qaar oo badan ay Argentina ku caawisay dib inta loo fiiriyay waxaa dhacday marka ciyaartan ka dhamaatay Gavi ayaa wuxuu u tagay Paredes wuxuu ku yiri Lionel Messi faarta isoo kale garsooraha ma caawin karaan waa idinka badin camal ciyaartu way dhamaatay marka Paredes waxaan aqaysoo kale meeshaas waxa ka bilowday dagaal xulka Argentina oo ficileyna wacdeen geysteen oo haddana baaritaan lagu hayo sawirkaas farxumad badan ayay gudbiyeen waxaa ka sii daran marka ciyaarta markay dhamaatay oo koobkii la guddoonsiinayay xulka Spain oo koobka guddoomayso ayay ka sii jeesteen kulligood maysan daawan xulka Argentina oo dhan waa xushmad darro tii ugu xumeed Lionel Messi asagoo laacib professional ah inuu yacni xulkiisa ku qalqaali waayo inay soo jeestaan ee daawadan si xushmad leh maadaama laga badiyay oo ciyaar yacni awood looga badiyay ay ahayd adduunka dhan ayaa hadal hayo xulka Argentina waa xulka lagu nacay sidoo kalena xataa taageerayaashooda cunsurnimo ayaa la yimaadeen World Cup-kan World Cup wuxuu noqday in macadahan ugu dambeyntii Spain ay u qalantay commenti ku soo qor fikirkaada